Somali Football TV daawadayaal ku soo dhawaada maanta waxaan idin haynaa barnaamij aad u xiiso badan maanta oo aanu u gadagali doono falaqayn doono shirkii jaraaid Murinho qabtay ee xiisaha badnaa ee uu Calaacalkii oo inta badan ka sii daayay uu lahaa waxyaabo badan oo ku saabsan teamka uu isagu dhaxlay iyo xaaladda hadda taagan tahay. I say to the fans that the fans are the fans and the fans have the right to have their opinions and to have their reactions. But there is something that I used to call football heritage. Murinho markaa shirka jaraaid ku yiri. Murinho wuxuu ka sheekeynayay last year's Manchester United qodobadii sano ugu dambeysay xagga gaareen say u dheelayeen iyo hadda compare kareyna marka wuxuu Champions League hortu galay wuxuu Champions League waxaan ognahay last time United markay final ka soo gaadhay 2011 baa 2011 ugu dambeeyay markii final soo gaadhay ugu dambeysay final 2008 way raayay laakiin 2011 final ka soo gaadhay marka wuxuu 2012 sanadkii ku xigtay group stage ka lagu riday okay sanadkii ku xigtay 13 waxay ku dhaceen 16 last 16 wuxuuna ugu daray aniga ku faanayay marka 2014 wuxuu yidhi sideedkii ku dhaceen 15 meesha may joogin ba 16 group stage ku dhaceen wuxuu 17 anigu waxda markaan waday Champions League ma jirin laakiin way qaadeen maxay ahayd UEFA League bay qaadeen markii dambana Champions League ka soo baxay wuxuu Premier League hadii la eego wuxuu yidhi sanad afartii sano ugu dambeysay marta duwad bay galeen mar shanaad mar afraad iyo mar lixaad ka wuxuu afartaa sanana kaalinta ugu fiican ay gaareen afraad buu ahaa ka wuxuu fans ku daa ibu garana maxay ka calaacaleen marka taageerayaashu ku kacay uu damiya qancinay miya taageerayaashu ganacay ka wada laakiin muxuu soo bandhigay wuxuu rabay inuu yiraahdo hadda marka dadku leen wax isbandhigayaan Guardiola iyo Murinho isla oo ninka Guardiola lagu eriyaamay wax la Guardiola laba sano jooga isla same time baa labadina waa haysateen ninka hadda Premier League uu qaaday top 8 uu ku jiraa laga yaabaa in Champions League final inuu gaaro uu qaado marka ma leeyahay isku jeedinaya wax yar baa stress baa adag yara qabtay wax isleeyahay maxay kamarada iska yar jeeday isla marka wuxuu yiri City oday Guardiola wuxuu dhaxlay anigu waxaan dhaxlay isku mid ma This is called this is football heritage. This is football heritage. This is football. لكن markii dambe new point fiican oo soo qaatay wuxuu yiri City todobaadii sano ugu dambeysay top 4 ka midaan oo laba jeerna way qaadeen laba jeerna labaad bay noqdeen sanadkan way qaadeen marka wuxuu yiri markii dambe ciyaartoy uu galay ciyaartoy wuxuu yiri Otamendi baa jooga Silva jooga De Bruyne maxay ahaydeen Sterling Aguero waxaas oo dhan wuxuu yiri waa investment ninkan Guardiola intuu leeyahay ciyaartoygaas way joogaan laakiin wuxuu yiri aniga kuwii ii joogay markaan yimi aan sanadkii hore aan iibiyay xaabay noqday hadda xagga ka dheelayaan eega hadii dheelayaan buu yiri waa tiimaga even hadii la dheelsiyo arko yiri markaan iyo Guardiola ayuu u jeeday oo slaate wuxuu yiri Guardiola xagaas ka bilaabay aan xagga maan ka bilaabay marka la isku compare kale karo la isma barbardhigi karo waa isagu wuxuu dhaxlay team design odago ciyaartoy fiican marka wuxuu anigu hadda maan ka tago waxa uu jooga Lukaku baa uu jooga Pogba ayaa uu jooga Matic baa jooga raygaan uu soo bandhigay ma ku saxsan yahay Murinho may because kooxda United koox yar ma hadda United wuxuu ka soo dhigay hal ma tahay team yar ka soo qaaday baxtu ka soo qaaday United waxa weeyaan Premier League iyo kooxda ugu adag weeyaan ugu koreysay ugu maxay history badan marka inuu yiraahdo waa koox yar oo waxaas heritage ma laha waxaas khalad weeyaan fans ka hadii ma ka fikrad ugu aad kooxda soo sano daawanaysay aad odayga Ferguson markuu haystay aad daawanaysay hadda inuu imaado yiraahdo heritage ma lihid ka hor laakiin waa run markuu Ferguson ka tagay teamkii sagxada soo tantoodii odayaal badan baa ku tuntay oo meesha iska yimi waxba isla haynin Moyes ka mid ahaa exactly oo
aan meel guulna ka gaadhin laakiin hadda isagoo okay UEFA League u badiyay isagu muxuu qaaday isagu UEFA League u qaaday haddii marka sanadkan waxa la rabay Champions League ama Premier League labada mid uun inuu ka gaadho even hadduna badintayn at least top maybe semi-finals ku gaaro laakiin ninkani miyaanu fahmaynin inaan lagu haysanin ciyaartooyadu haysto iyo tay Guardiola haysto okay oo kala duwanaan kara isagu hadda laakiin waa kan teamka dhisay team ciyaartooy fiican soo helay laakiin miyaanu fahmayn in lagu haysto shaxda iyo sidoo u ciyaaro defense-ka inuu sidoo u ciyaaro ninkani waxa la leeyahay Premier League aad badisidba laakiin haddii difaacan ku jirtid oo hal gool soo dhaliyo badi ama laga badiyo intaad maanta dhan difaacdo hore guul ugu soo gaadhay oo Inter saas ugu soo ciyaaray Chelsea saas ugu soo ciyaaray iyo Real saas ugu ciyaaray Real maxuu malinayaa waxa loo tuuray waxa weeye intaas yahay kubad qurux badan baa loo baahan yahay naadigu waxa weeye waa company laakiin taageerayaashu markay ciyaarta maadaan ciyaar daawanayaan maxaa rabaa in arkaan gool Soomaa ciyaar qurux badan oo passes iyo attack taasi kooxda maanta difaac ay ku jirto maxaa ka daawanaysaa laakiin kastoo dadii Murinho inta chat ku raacay isagu baa wuxuu yiri ani hadii waqti la siiyo always mentality-ga wax waa inaan wax raayo marka waxay waqti aan u baahan 2 sano ugu dara ma malaysia 2 sano ku furan tahay ni Murinho isagu dibkiisu waxa weeyaan always wax uu qaada magaalkiisa hata 2 sano la siiyo Premier League almost laga yaabaa uu helay waxa badan tahay inuu badiyo laakiin dibku waxa ka taagan tahay dadku half still kuma qanacsan ima dad saaq u qaadid isna wax lagu faano ma aha waan qaadnay laakiin maanta difaac baan ku jirnay anigu waxay la tahay inuu sidan haduu ciyaarayo inuu badin doono ciyaaro uu badinayaa laakiin Premier League difaac kuma qaadist waliba hadda Guardiola sidoo kooxda sidoo dheersiinaa dadka markay eegaan intay isku jiraan 200 kilomitir Guardiola ciyaartooyada wuxuu ka soo saari karaa wuxuu ka soo ciyaartooyada fiican buu ka saari karaa oo kubad jecel leelayo isku baasayo laakiin odagan Murinho isagoo ciyaartooyada haddii aanu helin intii uu baahnaa waqti bay ku qaadanaysaa inuu baxbadiyo exactly ciyaartooyada sax ayuu baahan yahay positionada fiican laakiin horta ma aragtay Murinho koox walba Chelsea way ku dhacday Real way ku dhacday markii Real markuu joogay Casillas Space Dilan Chelsea wadii xasaraas ku xanaaqeen si waxaad maantayna ciyaartooydu dhibaato ka haysta ciyaartaha marka xooga markuu joogo bacdi always dhibaato ay dhacdo dadkay sir qabsadaan marka isagu ciyaartooygu ku yarka ciyaaba la tahay hadda weegan waxa lagu haystaa Luke Shaw oo aflagaadiyo oo caayo horta in badan ma aha weegan oo kaliya badan oo jirjiraad xitaa isagoo jirjiraad soo fadhiya oo caayo iyo Pogba sidoo galay ma xastaa markii Pogba la weydiiyay Pogba ma dheelaya oo lahaa anigu waxba iga meegelin dheelayn kala ma boogi so inuu badiyo u daran inuu badiyo u daran laakiin still laga hadii ma ko orto wuxuu 4 minutes waxa hadlay oo kaliya hadlay su'aal la weydiinay oo shaaninay isla wali baa ka muuqata maystii laakiin waligeed baa iska kibirku ugu jirta taawadayaal maxaa ka qabtaan idinku calaacalkan uu muujiyay Murinho ma ku saxsan yahay inuu Manchester United hoos u dhigo oo yiraahdo waxba ma yahayn 7 sano aniga ka dhigaya waxay ahayd team weyn oo ka soo saaraya wax badin doona maxaa ka qabtaan idinku noo soo qora